abaabulkiisa lahaa shirkad magaceeda la yiraahdo Hanford oo ah shirkad baac mushtara kana diiwaan garaysan dalka Somaliland iyo meelo kale oo kamid ah geeska Afrika waxaana lagu casuumay ka soo qayb galay shiraayig iyo kooxo fara badan oo ganacsi madax banaan ka wada Somaliland Soomaaliya iyo dalal kale oo Kenya ay kamid tahay ujeedada shirka loo qabtayna waxay ahayd in marka ugu horeysa maalqabeennada iyo investorska maalgashadaha dhaqaalaha adduunku baananku ay kamid yihiin bangiyada ganacsiga Europe iyo Africa iyo Asia in ay gacan ka siiyaan shirkadaha ganacsiga madaxa banaan ee Somaliland iyo Soomaaliya badna dawladahaana ka qaybgalka aanu ka qaybgalay waxa ay salka ku haysay in aanu dhiirigelino ganacsiga xorta ah oo ka hadalno sida ay siyaasadda iyo qorshaha xukuumadda Somaliland ay u dhiirigelinayso horumarka dhaqaalaha isla markaana aanu u taageerino in ganacsatada reer Somaliland dunidu ay ka taageerto xagga dhaqaalaha xagga farsamada iyo sidii ganacsi isweydaara Somaliland iyo dunida kale oo dhaxmari lahaa ka Somaliland ahaan faa'iidooyinkii durtaba ka soo baxay ilaa imika waxa kamid ah in bangiga la yiraahdo Equity Bank waa bangi ganacsi ah oo ka dhisan dalka Kenya in uu codsaday isla markaana uu doonayo inuu xarun ka furto dalka Soomaaliya si markaa banku uga qayb galo dhiirigelinta ganacsiga xorta ah ee Somaliland oo markaa amaaho iyo taageero xagga farsamada iyo dhaqaalahaba uu siiyo ganacsatada reer Somaliland geesta kalena waxa uu wasiir Maxamed Cabdullaahi Cumar ka warbixiyay shir ballaaran oo ay wada qaateen mas'uuliyiin sarsare oo ka socota jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa oo ku sugan magaalada Nairobi shirkaasi oo nuxurka laga wada hadlayay uu ahaa kadib markii 13 bishii shanaad ee aynu soo dhaafnay jamhuuriyadda Somaliland ay ka biyadiitay cidii maamulka u haysay hawada sare ee Somaliland iyo Soomaaliya markii ay ku talaabsadeen qodobo aan waafaqsanayn sharcigii u degsanaa arrintaasi wasiirku isagoo warbixin kooban ka bixinaya qodobadii ka soo baxay shirkaasina waxa uu yiri sidaatan arrintaasi wanaagsan baanu UN-ta halkan aan ka hadalnay iyo Somaliland wada hadal dheer oo aanu yeelanay kadib waxa muuqatay oo ka soo baxay meesha in go'aanka bariga la qaatay 13 bishii shanaad inuu ahaa go'aan runtii aan si weyn looga wada tashan go'aan aan runtii Somaliland laga qayb galin go'aan xitaa hay'adaha UN-ta dhexdeedu aanay talo badan iyo la tashi badan aanay ku lahayn marka waxaanu soo jeedin arrinta laga noqdo oo dib loogu noqdo waxaana Somaliland iyo UN-tu jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay isla garteen oo soo jeediyeen in wada hadallo hore ugu socday Somaliland iyo Soomaaliya oo arrintan ku saabsan hay'adda jamciyadda quruumaha ka dhaxaysana ay qayb ka ahayd in dib loogu noqdo